waxaan hubaa inaad hore u soo dareentay isla markaana aad u soo martay dareenka qadhaadh ee ay leedahay guuldarradu. waxaan hubaa inaad garanayso dareenka ay leedahay inaad sariirtaada jiifto sababtoo ah ma awoodi karaysid inaad maalintaa kacdo. sidoo kale waxaan hubaa inaad dareemi karto sida ay tahay inaad ku noolaato adduun aan ku siinayn oo aanad ka helayn waxa aad rabto. aan kuu sheego dhowr xaqiiqo oo dunidan ku saabsan oo aanay dadka badankooda ogeyn. farxadda lama helo ee waa la kasbadaa. noloshuna ku siin mayso waxa aad rabto ilaa aad adigu si xoog ah kaga qaadato mooye. sidoo kale noloshu weligeed ku cadaalad samayn mayso ilaa aad ka noqonayso qof adkaysi ku filan u leh inuu la dagaalamo ilaa aad ku qasabto inay cadaalad ku noqoto. maxay dadku ugu guuldaraystaan inay helaan waxa ay rabaan? kadib markay dadku guuldarro la kulmaan, habfikirka dad badan ayaa si adag isku bedela. mararka qaar waxaa qofka ku abuurma fikrado cusub, fikradahaasi oo qofka ku qanciya inuu la noolaado guuldarrada isagoon cabanayn. fikradahana waxaa ka mid ah ma jiro qof heli kara waxa uu rabo noloshu cadaalad maaha, iyo hadallo badan oo kale oo uu qofku qabkiisa ku ilaalinayo. faraqa keliya ee u dhexeeya dadka hela waxa ay rabaan nolosha iyo kuwa guuldarrada la saaxiiba waa fikirka ay qaataan markay guuldaraystaan. halka kooxda hore fikirkii ay adduunka ka haysteen aanu isbedelin oo ay sii wadaan dagaalka ay ugu jiraan. kooxda labaad waxay samaystaan fikradaha riyooyinkoogii ka reebaya, waxaanay noloshooda inta ka hadhay ku soo celceliyaan fikradaha si ay uga baxsadaan ceebta iyo dembiga ay niyadda ka dareemayaan. waxaa laga yaabaa inaanay noloshu ku cadaalad samayn muddo gaaban. waxaa laga yaabaa inaad caqli iyo karti badan tahay oo aad haddana marar badan guuldarraysato. waxaa laga yaabaa inaad aqoon fiican leedahay haddana aanad helin shaqadii aad ku hamiyeysay. ama waxaa laga yaabaa inaad tahay wiilka ugu shidan haddana aanad helin gabadhii aad ku riyoonaysay. waxaa laga yaabaa in dhammaan waxyaabahani ay muddo gaaban kugu dhacaan, balse haddii aad adkaysi badan yeelato oo aad iskudaygaaga sii wado, ugu dambaynta waxa aad heli doontaa waxa aad rabto nolosha. marka keliya ee aad si dhab ah u guuldarraysataa waa marka aad joojiso iskudayga, balse maaha markaad guuldarraysato. furaha aad ku heli karto waxa aad rabto noloshu waa inaad isku daydo oo aad isku daydo ilaa aad ka ogaanayso waxa dhab ahaan kuugu shaqaynaya. sida loo helo waxa aad rabto nolosha xaqiiq ahaan, ma rabtaa inaad hesho waxa aad rabto? ma fahansan tahay waxa rabitaan uu macnaheedu yahay? macnaheedu waa inaad damac ku gubo u yeelato waxa aad rabto inaad hesho. macnaheedu waa inaad diyaar u noqoto inaad u hurto wax kasta si aad u gaadho hadafkaaga. macnaheedu waa inaad u dulqaadato guuldarrada, dhaleecaynta, diidmada iyo waqtiyada adag. macnaheedu waa inaanad weligaa isdhiibin xataa haddii wax kasta ay liddi kugu noqdaan. inaad hesho waxa aad rabto noloshu waxay ku bilaabantaa maya ku dheh xaqiiqada aad hadda haysato in ku saamaxayn inaad gaadho hadafkaaga adigoo go'aansanaya inaad beddesho. maya ku dheh hoosaynta adigoo meel sare hiigsanaya. maya ku dheh dareennada xun adigoo u dagaalamaya si aad noloshaada dhinaca fiican ugu beddesho. maya dheh fikradaha beenta ah adigoo diidaya inaad qaadato. maya ku dheh dadka fikradaha khiyaaliga ah ka dhaadhiciisida adigoo diidaya inaad aaminto. maya ku dheh daciifnimada adigoo noqonaya qof xooggan. maya ku dheh guuldarrada adigoo isku dayaya ilaa aad ka helayso waxa aad rabto. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin akhyaarta sharafta leh. haddii uu muuqaalkani ku anfacay ha iloobin inaad like saarto, sidoo kale la wadaag oo gaadhsiiya asxaabtaad is leedahay u anfici karaa muuqaalkani. sidoo kale ha iloobin inaad subscribe saarto haddii aanad hore subscribe u saarin. buugga sida loogu guulaysto wax kasta oo aad rabto noloshu waa buug ay sii daayeen wax ka bara channel, kaasi oo 100% ka caawin doona tallaabana kuugu sheegi doona sida loo helo looguna guulaysto wax kasta oo aad rabto nolosha, loona xaqiijiyo hadaf kasta iyo himilo kasta oo aad leedahay. si aad u ogaato xog dheeraad ah iyo sida aad ku helaysaba, daawo muuqaalkan. sidoo kale linkiga ka eeg description-ka hoose ee muuqaalkan.